sharaf weyn noo ahayd inaanu kulan la qaadanno guddoomiyaha iyo taliyaha gobolka Mudug ee Puntland odayaal dhaqameed iyo Soomaali guud ahaan dadka degan magaalada Gaalkacyo kulan wanaagsan buu ahaa kulan aan anagu codsannay buu ahaa muddo waxaanu joognay Gaalkacyo saad guddoomiyuhu sheegayay waxaanu u nimi dhacdo xanuun badnayd oo ka dhacday Galmudug dhinaca Gaalkacyo arrintaasna si wanaagsan bay noogu socotaa xalinteedii walaalo baan u nimi runtii si fiican noo soo dhaweeyay ka garaabay wixii meesha ka dhacay xalkeeduna aad iyo aad buu noogu dhow yahay intii aanu joognay waxaa noo yimid dad Soomaaliyeed oo fara badan oo degan mas-uuliyadana saaran bayna ahayd inaanu dhageysano wixii cabasho ay soo jeediyeenna maamulka Galmudug ee gobolka Mudug waa u sheegnay maantana waxaanu la qaybsannay arrintaas guddoomiyaha iyo maamulka Puntland ee Mudug waxaana loo ballamay oo wafdiga uu hogaaminayo wasiirka koonfur galbeed ee cadaaladda in ay dhinaca Puntland markaanu xamar ku noqonno ay iyagu sii joogaanoo ay socdaal ku maraan magaalooyin dhowra si ay ula socdaan dad badan oo koonfur galbeed ka soo jeeda ayaa magaalooyinkaa degan ku dhaqan inay soo wareystaan inay maamulada gobolada iyo maamulka guud ee Puntland ay wada hadal la furaan aad iyo aad baan maanta loo wada hadlay waana la isafkarto waxa Soomaalidu haddii la wada hadlo hadal walba wuxuu la xisaabtan baa imanaya in la iswareysto oo la xisaabtamo oo la isweydaarsado wixii tala waa muhiim ummadda Soomaaliyeed baa u baahan waxyaalaha inaga maqan bay ka mid tahay waa la iscalool xaaranaya hawshaasina waa hawsha dowladnimadayba mar haddaa dowlad tahay wixii cabashaa ee dhibaatooyina ee meesha yaalla maamulka meeshaasaa loo gudbinaya hadday run tahayna waa laga garaabayaa haddii warkaasi jirinna dee war beenuu noqonaya markaas hawshaas mabsuud baanu ka nahay say ku soo dhammaatay wafdigaasina waa sii wadanayaan wadahadalkaas ay maamulka Mudug la leeyihiin iyo maamulka Puntland guud ahaan oo safar ay ku mari doonaan waanan idinka mahadnaqaynaa runtii soo dhaweynta guddoomiyaha aad baan ugu mahadnaqaynaa maanta aad baan ugu faraxsanahay maanta madashan kulmisay Soomaali weyn oo ay ugu yimaadeen xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliyeed iyo xildhibaanada iyo wasiirada koonfur galbeed oo u yimid dhacdadii ka dhacday Gaalkacyo dhinaca Galmudug oo dadkii Soomaaliyeed oo dhalinyarada caraysan ay dhibaatada u geysteen inay xalliyaan u yimid waxay ku mahadsan yihiin hadday dhinaca muddo joogeen oo arrintii ay soo ururiyeen inay dhinaca kalena soo booqdaan weliba iyagoo ku daray inay isu kaayo keenaan dadkii deegaankan joogay oo diil iyo mirif oo iyana la waraysto xildhibaanadu waa ku mahadsan yihiin waa xildhibaanadii dalka waa xildhibaanadii Soomaaliyeed weeye waajib baad gudateen aad baan idinku mahad celinayaa waxaan kaloo mahad celinayaa xubnaha dadka koonfur galbeed ka soo jeeda oo odayaasha iyo ganacsatada ah oo sida saraaxada u hadlay waxa ay tabasho qabeen waxa ay wanaag la kulmeen waxa ay dib arkeen walaalahood sida fiican ula hadlay waa gobonnimo weeye qofku waxa uu qabo inuu sheegtaa la rabaa dib iyo dheefba bini'aadamku waa leeyahay waxaan idin leeyahay walaalayaalow 100,000 oo qof baa Puntland soo gashay nadiif ma wada noqon karaan sharkooday wataan aqli xumadooday wataan dhibkooday wataan dembigooday wataan
soomaalidana waxay tidhahdaa baruur keliya baruur iyo qurmisa miyay ahayd waxbaa jiray saas ah haddii dadka inta xumi ay wax bi'iso magacu wuxuu gaarayaa meelo badan buu gaarayaa laakiin waxaan qiraynaa dadka soomaaliyeed oo halkaa ka yimid inuu horta awalan dad diin leh oo dhaqan diineed oo asal ah leh oo dadka dhaqan xumada sameeya iyo waxyaabaha fawaaxishta ah aanu badnayn kulankii wuxuu ku soo gabagabay is-afgarad iyo isfaham iyo isla xisaabtan iyo waftiga koonfur galbeed oo ilaa garoowa soconaya ilaa bari tegaya dadkooda soo booqanaya guddiyadooda la kulmaya iyo annagoo gacmo furan ku soo dhaweynayna waa mahadsantihiin